waxa ay u badan tahay inaad horay u aragtay mid ka mida qariiradahan waa mashaariicda dib u soo celinta qaybinta dawladaha carbeed haa waa taqaan balse waxa ay u badan tahay inaadan garanayn cidda ka dambaysa haddaba aan kuu sheegno mid ka mida kuwa ugu muhiimsan dhinacyada kulugta leh magaciisu waa Bernardo Lewis oo ahaa gardaadiyihii dagaalkii Maraykanku ku qaaday Ciraaq waxa uu daraaseeyey ama bartay islaamka si aad ah ayuuna ugu xeel dheeraaday kadibna waxa uu u weeraray islaamka si aan naxariis lahayn carabta si aad ah ayuu u xaqiray una fududaystay isaga oo yidhi habka keli ah ee loola dhaqmi kara carab waa in ul weyn lagu garaaco iyaga oo indhahoodu shanta yihiin maanta caqabadda keliya ee hortaagan argagixisada caalamiga ah ee islaamku waa Maraykanka sidaas awgeed Maraykanku waa bartilmaameedka soo socda Bernardo Lewis waxa uu ku dhashay London sanadkii 1916 waxa uu ka dhashay qoys yuhuud ah intii uu yaraa waxa uu bartay afafka iyo taariikhda waxa uu xilli hore si fiican u bartay afka carabiga iyo luuqadda cibriga goor dambana waxa uu si fiican u bartay luuqadaha laatiinka farisiga iyo turkiga sanadkii 1939 waxa uu shahaadada PhD ku qaatay taariikhda islaamka waxa uu ka qayb galay dagaalkii labaad ee adduunka isaga oo ka mid ahaa ciidanka iyo sirdoonka Ingiriiska dagaalkaas kadibna waxa uu ku laabtay jaamacadda isaga oo waqti u helay cilmi baarista waxa uu ahaa cilmi baarihii ugu horreeyey ee la siiyey xaqa oggolaanshaha inuu galo madxafkii Cusmaaniyiinta toddobaatameeyadii waxa uu u guuray Maraykanka si uu halkaas ugu shaqeeyo bara jaamacadeed halkaasna waxa uu ku helay dhalashada Maraykanka waxa uu si kal iyo laab ah ula saaxiibay Senator Henry Scott Jackson kaas oo noqon doona asaasaha muxaafidiinta cusub si tartiib ah Lewis waxa uu uga wareegay kursiga cilmi baaraha isaga oo u wareegay kursiga siyaasiga waxa uu xiriir adag la yeeshay toddobaatameeyadii xukuumaddii shaah ee Iiraan iyo xukunkii kaligitaliska ahaa ee Turkiga 80meeyadii waxa uu xiriir la lahaa madaxweynihii Masar Anwar Saadaat waxa uuna ka qaaday Saadaat warqad ku socotay Israa'iil taas oo ku saabsaneed nabadgelyada labada waddan ha yeeshee xiddigii Lewis waxa uu si aad ah cirka isugu shareeray markii uu dhacay kacdoonkii islaamiga ahaa ee Iiraan sanadkii 1979 sababtuna waxa ay ahayd soo muuqashada hadal uu sheegay 3 sano ka hor xilligaas kaas oo ku saabsanaa in maamulada ku dhisan aragtida kala saaridda diinta iyo dawladda ama cilmaaniyaddu ay hoos u dhici doonaan iyada oo ay talada bariga dhexe qabsan doonaan xukuumada islaami ah sanadkii 1990 waxa uu faafiyey maqaalkiisii ugu caansanaa oo watay ciwaanka jiridda carada islaamka maqaalkaas waxa uu uga faallooday hardanka u dhaxeeya islaamka iyo kirishtaanka isaga oo ku soo koobay in labada caqiido ay ku lug leeyihiin hardan joogto ah labada dhinac islaamka iyo kiristaanka dagaaladu waxa ay ka dhex bilowdeen qiyaastii markii uu islaamku yimid markii Osama bin Laden duqeeyay wadnaha Washington Bernardo Lewis waxa uu isu rogay wax sheeg siyaasadeed oo ay Washington leedahay waxa uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee u fiirsada lana socdo hadallada iyo dhaqdhaqaaqa Osama bin Laden ka hor intii aanay dumin labadii taawar ee ganacsiga adduunka 3 sano oo dhammaystiran waxa ay ahayd wax sheegnimo uu ku tilmaamay Bernardo Lewis xilli dambe isaga oo yidhi dhab ahaan Osama bin Laden waxa uu iga dhigay nin caan ah Lewis intaas kadib waxa uu isu rogay qeexaha siyaasadda Maraykanka wixii ka dambeeyay dhacdadii 11 Sebtembar 2001 George Walker Bush waxa uu aqalka cad ku haystay nuqullo qoraal ah oo ka mid ah maqaalada Bernardo Lewis xogaha kooban ee uu diyaariyo Lewis waxa loo geyn jiray madaxweyne ku-xigeenkii Maraykanka Dick Cheney iyo wasiirkii gaashaandhigga Donald Rumsfeld Lewis buuggiisii uu faafiyey bila kadib dhacdadii 11 Sebtembar oo watay ciwaanka maxaa qaldan waxa uu noqday hagaha dimuqraadiyiinta cusub iyo dastuurka u ololeeyayaasha dagaalada Maraykanka sida Paul Wolfis Michael Flynn iyo John Bolton afkaartii Lewis waxa ay garaacday gurbaanada mawjado cusub oo colaad ah kuwaasoo ka mid ahaa dagaaladii Maraykanka ee bariga dhexe waxa uu ku bilowday Afghanistan balse Lewis waxa uu rabay wax intaas ka fog sidaas awgeed maqaaladiisa oo dhan waxa uu u fududeeyay ama u sakhiray ololaha rididda maamulkii Saddam ee Ciraaq ha yeeshee natiijooyinkii musiibada ahaa ee ka dhashay dagaalkaas ayaa ku qasbay Lewis inuu iska beri yeelo kulug lahaanshaha dagaalkaas Ciraaqiyiintu waxay soo bandhigeen dhismaha dawlad ku meel gaar ah oo laga sameeyo waqooyiga Ciraaq taas oo magaceedu yahay dawladda Ciraaqda xorta ah ma aanay dalban wax taageero militari iyo maaliyad ah
waxa ay dalbadeen oo dhan waxa ay ahaayeen taageero siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed waxayna ay sheegeen in taasi tahay waxaa caawinaya waxaanan u arkay in fikraddaasi tahay mid wanaagsan waxaan u jeedaa in xukuumadda ciraaqda xorta ah ee ay dhisanayaan ciraaqiyiintu kana dhisanayaan gudaha ciraaq waxay ahayd mid saamayn iyo awood badan waxa ay codsadeen sida aan xusay waxa ay ahayd taageero siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed mana aanay helin balse taas beddelkeeda waxa ay heleen cagmarinta militariga waana kaas midkaan rumaysanaya inuu ahaa gef musiibo ah dagaalku ma ahayn mid ku filan inuu ku qasbo luwiis inuu dib ugu laabto afkaartiisa cajuuskan maraykanku waxa uu ilaa ilbiriqsigii ugu dambeeyey si aan daal lahayn u taageerayay israa'iil waxa uuna inkirayey xaqa ay falastiiniyiintu u leeyihiin inay dawlad dhistaan waxa uu bahdilay carabta muslimiintana waxa uu ku sheegay argagixiso iyada oo afkaartiisu soo jiidanayso taageerayaal badan oo reer galbeed ah ayay haddana waxa ay cadow uga abuuraysay waddammada carabta waa col iyo cadaawad uu hoggaaminayay indhergaradka falastiin ee edwarda saciid oo dagaal dheer oo aan cidi ku guulaysan la galay luwiis muddo 25 sano ah ha yeeshee arrinta aadka u halista badan ee ku saabsan dhaxalkii uu ka tegay luwiis waa hanuunintiisii dhowr mashruuc oo waaweyn oo ku saabsan kala furfuridda bariga dhexe iyo dib u soo celinta qaybintiisa arrinkani waxa uu bilowday sannadkii 1978 xilligii uu ka digay la taliyihii ammaanka qaranka ee maraykanka Zbigniew Brzezinski inay dumayaan dawladaha taagta daran ee bariga dhexe waa dawlado uu u bixiyey qaansada dhibaatada xilligaas ayuu luwiis soo bandhigay aragtidiisa waxa uu go'aamiyey in dawladaha carbeed ay lumiyeen hawshoodii ahayd inay ahaadaan hay-ado siyaasadeed riyadii carabnimaduna ay dhammaatay sannadkii 1992 ayaa luwiis waxa uu soo bandhigay aragti ku saabsan dib u soo celinta qaybinta dawladaha carbeed iyada oo lagu dhisayo qabaa'il iyo kooxo taasna waxaa loo marayaa sidii uu qabay luwiis in dagaallo laga huriyo ama laga alooso qudus ciraaq turkiga yemen masar balqaan oo ka tirsan iiraan bakistaan iyo afghanistaan aragtida luwiis waxa ay ahayd horumarin lagu samaynayo riyadii israa'iil ee ahayd in israa'iil loo rogo dawlad ku dhisan nidaamka imberaaliga kaas oo ah siyaasad ay dawladaha waaweyne ku qabsadaan dawladaha taagta daran sidaas oo kalena la kala daadiyo dawladaha waaweyn ee ku hareeraysan israa'iil riyadaas waxaa sawiray indheergaradkii yuhuudka ahaa ee udwad yenon siddeetameeyadii yenon waxa uu ku baaqay in dawladaha ciraaq iyo suuriya loo kala furfuro deegaanbeeleed siinaay oo ka tirsan masarna lagu soo celiyo gacankuhaynta israa'iil waxa uu odorosay yenon in suuriya loo qaybiyo dawlad ay shiicada calawiyiintu xukumaan oo xeebta ka dhisanta dawlad ay sunniyiintu leeyihiin oo ka dhisanta xalab iyo dimashik iyo dawlad ay qolada duruuska xukumaan oo ka dhisanta golan iyo waqooyiga urdun iyada oo haddaba qorshahaas kala qaybintu uu xayirnaa muddo 20 sano ah haddana waxa uu ku soo noqday hadalhaynta iyo xagga hore kadib dagaalkii ciraaq taasna waxaa daba socday mashruuca maamulka maraykanka ee loo yaqaano bariga dhexe ee cusub sannadkii 2006 korneelka howlgabka ah ee maraykanka ralph petres waxa uu ku faafiyey majalladda ciidamada qalabka sida ee maraykanka qorshe cusub oo kala qaybin ah qorshahaas ciwaankiisu waxa uu ahaa xuduudda dhiigga waxa uu qorshahani xambaarsan yahay kala qaybin ku dhisan qabiil iyo kooxo cusub kaas oo ku wajahan dawladaha suuriya ciraaq sacuudiga iiraan iyo turkiga ujeeddadu waa dhismaha dawlado cusub oo madax bannaan oo ay leeyihiin kurdiyiinta iyo qabiilka bolosh oo dega gobolka bolojistaan ee iiraan iyo shiicada sannadkii 2008 suxufiga jarfarey mark golbrek ayaa isna faafiyey aragti ku saabsan kala qaybinta waxaana ku lamaansanaa dood aqalka odayaashu geliyey qorshe aan fulintiisu waajib ahayn oo ku saabsan kala qaybinta ciraaq qariiradaha suxufiga golberg ayaa u qaybiyey suudaan dawlad ka dhisan waqooyiga iyo mid xukunta koonfurta 3 sano ka hor intii aan si dhab ah kala qaybintu u hirgelin gaashaanla sare ralph petres waxa uu uga qayb galay aragtidaas kala qaybinta sacuudiga iyo dib u soo celinta qaybinta suuriya ciraaq iyo urdun oo loo qaybinayo 4 dawladood oo ay ku jirto dawlad ay shiicada suuriya iyo ciraaq wada leeyihiin iyo in gobolka siinaay ee masar la geliyo gacankuhayn caalami ah arrinku ilaa heerkaas kuma joogsan sannadkii 2013 wargeyska new york times ayaa faafiyey qorshe cusub oo dood badan kiciyey waxa ay ahayd qariirad 5 dawladood oo carbeed u qaybisay 14 dawladood iyada oo loo qaybinayo suuriya iyo ciraaq 3 dawladood halka yemen iyo liibiyana loo kala qaybinayo min 2 dawladood qorshahaas waxaa lagu soo bandhigay in sacuudiga loo qaybiyo 5 dawladood oo dhammaystiran sooyaalka sannada dheer kadib go'aamiyeyaashii reer galbeedku waxa ay inkireen jiritaanka
wax qorshayaal ah oo lagu kala qaybinayo bariga dhexe waxa ayna arrintaas ku tilmaameen kuyirikuyeen weyn oo la iska dhaadhiciyey ha yeeshee qaybintaasi maanta ayay isu rogaysaa mid dhab ah marka la fiiriyo dagaalada sokeeye ee ku dherarsan laga bilaabo suuriya ciraaq yemen ilaa libiya kuwaas oo ku soo rogaya waaqica xaalad cusub oo cabsi leh soona cusboonaysiinaya dhaxalkii uu ka tegey cajuuskii maraykanka ahaa kaas oo ka huleelay adduunka hal qarni kadib iyada oo dhaxalkiisii burburintu uu sii adkaynayo joogitaanka iyo jiritaankiisa